horta waxaan islaahay dhibaataan odayaal ahayn ma jirto nin xildoon ah iyo odayaasha way dhibaatada deegaankeenna waxay u maagan yihiin aniga garan maayo odayaasha waxa xil ka saaran yahay inay nabadgelyada ka qayb qaataan inayna siyaasadda ku milmin in aynan mataqaanaa dadka sida xun ama xag jirka u fakaraya aynan raacin yaa loo baahan yahay hadda tusaale ahaan China Group ayaa magaalada Jigjiga marmar ka jira marka la qabto waxyaabahan ku doodno waxa kamid ah masaajidku ka soo baxay kuwa munaafiqiinta ama wax qorqora waxay dhigi doonaan qofku markaan anagu odayaal ahaan aanu cabiro shirkanaga waxaasa la yiri xukuumadda waa culays saartay cid culaysna saaraysa iyo cid mataqaanaa wax noo yeelinaysa midna ma jirto annaga fikirkanaga cabirayna odayaasha waxa xil ka saaran yahay inay nabadgelyada ka qayb qaataan inayna siyaasadda ku milmin in aynan mataqaanaa dadka sida xun ama xag jirka u fakaraya aynan raacin yaa loo baahan yahay alxamdulilah ilaahay waxaan ku mahadinaynaa nabadgelyada maanta deegaanka ka jirta muddadan 7 sano ah ee ilaahay ina soo gaarsiiyey alxamdulilah horta awalan ilaahay baan ku mahadinaynaa marka labaadna dawladda iyo shacabkeeda oo isku duuban ayaa sabab u ahaa dhibaatadii hore ee ku soo jiray inaan nasanno oo maanta guul nabadgelyo oo la gaari karo inaan gaarno ilaahay baan ku mahadinaynaa waxaan ku talinaynaa oo doonaynaa in la sii xoojiyo sidii awilba amniga dawlad ahaan iyo shacab ahaan aan uga wada shaqaynaynay inaan sii xoojinno intaa un baa muhiim oo anugu kulli soo jeedin lahaa haddaanu nahay odayaal mas-uuliyaddanna saaranno ilaahay hortiisa aan ugu dhaarannay qof kastoo halkan fadhiya oo suldaan ama ugaas ama wabar ama aan idhaahda garaad mas-uuliyad loo dhaartay baa jirto ilaahay hortiisaan ka ballan qaadnay ilaahay hortiisaan waxaan ka ballan qaadnay dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale oo nala nool inaan midnimada gudahooda ka shaqeyno arrinkaas marka haddii aan kaalin ku yeelan wayno aan ka shaqeyn wayno ilaahay barowna xisaabinaya dhammaanteen akharana mid waxay noqonaysaa waddo xun noo horseeda adduunkana fadqalada iyo dhibaato laga bixi waayo ay noqonaysaa marka waxaan leeyahay doorkan ka qaadan jirnay nabadda iyo midnimada shacabka inaan sii xoojino waajib ilaahay na saaray oo diinteena ay na farayso inuu yahay aaminsannahay marka dhaqan marka la leeyahay waa inaan midnimada shacabka laga shaqeeyo dadkeena aan midayno hal qowmiyad oo walaalo ehel oo meel wada degan ayaan nahay waxa hadda maanta loo baahan yahay waxa weeyaan waxa uu soo sheegay Suudaanka ugu horeeyay 7 sanadood midnimadii iyo horukacii iyo nabadii aan helay in la ilaaliyo ta koowna oo taas weeyaan nabadii midnimada uu taagan yahay waxa weeyaan inuu dadka isu soo dhaweeyo inuu dhibaatooda xalliyo inuu maxaan ku dhahay amniga uu si buuxda isu garab taago aniga horta waxaan islaahay dhibaataan odayaal ahayn ma jirto nin xildoon ah iyo odayaasha way dhibaatada deegaankeenna waxay u maagan yihiin aniga garan maayo runtii dadka telefoon ay wada haystaan miidiyaha wixii ka dhaca waan wada aragnaa waxaan leeyahay war ninka Mustafa Dhaamo iyo xukuumaddiisa gadaalha loo raadiya dhowr iyo 10 xilka soo qabatay eedna maamushay ninkee Mustafa ka fiican horeeyana loo raadin hebel anaa qabanaa nin cusub iyo soo dhihin dadka xilka soo qabtay saynu maamul jireen seen ku noolayn seen ku wada joogna cadaaladday ahayd aragti xumaad qabtaa kana tahay xaduudaan ruuxa ka soo gudbiyaataha la dhihi jiray imanka mooyaalay iyo hadii ali rawajaala intuu dhaxays waa isku furunta Soomaalida lama kala fila war adeer ninka cadaalad badan anu garan maayo ma fahmaayo anu ma garan wali anu oday baan ahay reeran oday u ahay ninka cadaalad roon ma jirin sabab dheh hamoodina odayaalay ninkan hadla Mustafa reerkooda wax u siyaadi hadaad leedihiin hadaba ma jirto laakiin waxaan isku miisaamay waxaan soo marnay iyo wax iminka joog waxaan isku markaan isku miisaamay
ninka Mustafa Muhammad Umar iyo dawladdiisa ka cadaalad roor ma arkin war 60 anoo jira yaa gurigayga 8 saac oo habeenimo liiga soo xiray indhaha lii duubay funaanadii markaan albaabka lagu jibay gaariga turskiisi yaa indhaha lii duubay waa lee xiray 6 habeenaan anoo indhaha ka duuban xirnaay dambina ma gelin 6 habeen kadib waa lii soo day kuwa aan raadinayno horta kuwa ayaga ahay weey naasaa laga gooyiyo dabada loogu shubay gabar basbaas iyo hebel xaar luxusi iyo wariyaa nafsi uu san qabanayna ma yahay waxaan naftayda iyo tiina buu dardaarmi lahaa ilaahay inaynu ka baqno oo maalmahan khayrka badan aynu ku jirno inaan rabbina maxaan ku idhahdaa ka baqno runna isu sheegno si aynu aakhirada iyo adduunka baynu u badbaado inta marka aan ka gudbo walaalayaal rag badan baa soo hadlay ilaahay waa inoo nicmeeyay wixii aan soo marayna dhammaanteen waa wada xasuusannahay haddii nicmadaa rabbi aad garan weydana niqmay isu beddeshaa shalay way waxaan soo marray waad og tihiin maanta macallin qur'aan baad xifdisan tahay u xidhan ma jiro oday reerkaaga waxaa u xidhanna ma jiro ugaas xidhan iyo suldaan xidhanna ma jiraan hooye iyo gabadh cadradahoo rabbi maxaa ku idhaahdaa sharaftooda ilaaliyey oo maxaa ku idhaahdaa maanta maxaabiisahoo la jir dilayaa ma jiraan oo tacaddi lagu sameeyey marka nicmadaa rabbiina siiyey haddaan ka faa'iidaysan weyno oo ay noqoto maxaa ku idhaahdaa mawmul baa ilowsha dhowaa wixii aan soo marray hadduu ilowshaheen uumashii oo kala noqdo rabbi wuxuu inoogu bedelayaa cadaabkii ka daran buu inoogu bedelayaa mid kale insha Allah xukuumadan oran midna odayadan oran to odayada inamadan maalin walba ku baaqa ama ku faana inay amni darro sameynayaan innaga dhalay innagaana odayo waxyaabaha aan aad u diido waxa ka mid ah nin baa dembi fali ninka cidda ugu horreysay ordaysa waa oday weeye hadda tusaale ahaan China Group ayaa magaalada Jigjiga marmar ka jira marka la qabto waxyaabahan ku doodno waxa ka mid ah masaajidku ka soo baxay mana jirto taa waxaan odhan lahaa wixii wanaag sameynayna aan taageerno wixii xumaan sameynayna inagu aan dawladda ugu horreyno sababtoo ah nabadgelyo darrada ma abuuro kaliya ninka qoriga wata ka afka ka hadlaya abuuraya ka ficilada kala sameynaya abuuraya marka taana waxaan leeyahay odayaal ahaan aynu dhinac uga soo wada jeedsano oo aynu dawladda ku taageerno ta kale qolyahan media waxa weeyaan waa aafo imika nagu soo biirtay weeye aafadaasna haddaynaan iska gaadhin ibteeday leedahay waxaad ogtihiin shalay wixii aan soo marnay waxaad ogtihiin xorriyadda insaanka meesha la gaadhsiiyey sharafta iyo karaamada bani aadamka meesha la mariyey waxaad ogtihiin dhaqankeenna catiiqa ahaa ee wadaagsanaa ee qaaliga ahaa meesha la gaadhsiiyey waxaad ogeydeen in la odhan jiray shilinka iyo sharafta odayaashaan isku baabi'inaynaa insaanku marka uu xorriyad uu ku fikira uu helo marka uu amni helo ayaa cadaaladuna timaadaa cadaaladdu markay timaaddo insaanku wuxuu u noolaan sida bani aadamka horu maray ay u noolaadaan waxaa laga yaabaa qofku marka uu ku fikiro seed u noolaataa waxaa ka horreeya amni ma haysataa xorriyad ma haysataa iyadoo hadda aan buunbuunin iyo mubaalaqa aysan ku jirin 7 sane hadda nidaamkani buu ka jiray deegaanka waxaad og tihiin xorriyadda insaanku maanta meesha ay ka maraysa deegaankeenna waxaad og tihiin amni darro maanta deegaankeenna ka jirtaay inaysan jirin tu innaga sabab ay teenna ku timaadda mooyaane waxaad og tihiin ciidamadeennu inta badan waxay xoogga saaraan waxa weeye inay 2 shacab oo ehel u ah iyaga inay kala celiyaan ama ay shaqadooda dhan u badnaato inay 2 beelood oo waxa ay isku haystaan uu yahay wax iyaga ka badan oo dhul ku saabsan inuu yahay anu shalay iyo maanta isbarbarin maayo laakiin maantaan isbarbarin Itoobiya waxa ka jira 12 dawlad deegaankeennu maanta deegaanada dalka ka jira markaad barbariso
waa deegaanka ugu nabadgelyo badan ugu nabdoon 100%. waa deegaanka horumarkiisu si xawliya u socdo 100%. deegaanada kale ee Itoobiya markaad u eegto dhibaatooyinka ka jira bahda dhaqanka halkan fadhida cid ay shaki ka saaran yahay ma jirto. laakiin waxaa jira dad deegaanadooda gubay oo danley ah, dad deegaankeena u gacan haadinayaan oo danley ah way jiri karaan. xukuumaddu markay aqoon isku hubayso horumar u dhaqaaqdo dadka danleydu xaalad abuur bay isku hubayaan, oo xaalad abuur bay isku hubayaan. nabadgelyada dani uguma jirto oo dad inay nabad wax ku raadiyaan ay ka go'an tahay maaha. waxay wax ku doonayaanna waa inay nabadgelyadeenna iyagoo adeegsanaya dhambiil deegaano kale laga soo tuuray ay nabadgelyadeenna iyo deegaankeenna khalkhalgeliyaan. taa odayaasha deegaanku inay horta hoosta ka xariiqaan baan ayaan soo jeedin lahaa.